dhowr qodob oo ku saabsan xaaladda laascaanood ayaan dul istaagi doonaa iyo weliba waxyaabay ka soo kordhay kadib shaqaaqa caafimaad ka dhacday magaaladaasi. Sidoo kale jigjiga iyadana maanta waxaa ka dhacay iyadana inay isku gacan qaadeen axmaarada iyo weliba dadka Soomaalida. Halkan ayaan idinku wadaagi doonaa sidoo kale Puntland oo ku dhawaaqday gool istaag. haddii aan ku bilowno magaalada laascaanood ilaa hadda xaaladdeeda ma sahlana kadib markii habeenimada caawa ee shaqaaqa ka dhacday magaalada. Dhalinyarada oo ku dhawaaqay badbaado in ay badbaadinayaan Sool gaar ahaan laascaanood ayaa waxa ay sameeyeen mudaharaad ay weliba ku dalbanayeen inaysan arki karin hoteela ee ku yaala magaaladaasi in aan laga ogoleen in ay ku qabsadaan jabhadda SNM wax shirar ah ama dadka iga taageersan. taasi waxa ay keentay in dadkii ganacsatada ahaa ay ku dhawaaqeen in hadda ka bilaabato ay bari ay ka yeesho markaan aysan ka kireen doonin dadka SNM ee ka soo jeeda Somaliland. markaasna taasi waxa ay keentay in Mahad Cambaashe oo dhalinyaradii u kala ceyriyay mudaharaadkaas sameeyay markaana dalbanayay in aan lala tacaamulin jabhadda SNM ee Somaliland. sidoo kale Puntland iyadana waxa ay ku dhawaaqday gool istaag kadib warqad ka soo baxday maanta Dani oo uu sheegay inay ka tashanayaan ayaha Puntland isla markaana federaalka sida hadda ku socoto sida wax ku socdaan buu yiri hadda ay ku sii socoto in ay ayahooda ka tashan doonaan isla markaana gooni u istaagi doonaan. taasi ayaa waxa ay keentay in shacabka Puntland iyo siyaasiyiin hore ay ka hor imaadaan go'aanka Dani uu qaatay. Dani ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu waday in uu ka sameeyo guud ahaan Puntland inuu ka qabto doorasho qof iyo cod kuwaasi oo diiwaangelintooda ilaa hadda ay soconayso. sidoo kale habeenimada xalay iyo habeenkii ka horreeyay waxaa socday munaasabado kuwaasi oo ku saabsan sanad guuradii ka soo wareegtay xilligii isaga la magacaabay oo ka soo wareegtay muddo 4 sano ah. Dani ayaa waxa uu ku faanay in tan iyo intii uu joogay Puntland inuu wax badan u qabsoomay isla markaana uu qabtay oo ay ka mid tahay garaac. sidoo kale iyadana magaalada jigjiga maanta waxaa ka dhacday shaqaaqa taasi oo ku saabsan in nin axmaar ah uu gabar Soomaali ah ku dhex darbaaxay bangi weyn oo halkaasi ku yaalo. taasi waxa ay keentay in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jigjiga inay ka mudaharaadeen isla markaana ay u gacan qaadeen axmaarkii weliba dadkii kale ee halkaasi ku sugnaa. iska horimaad halkaasi ka dhacay ayaa waxa uu sababay in dhaawacyo ay soo gaareen dad shacab ah oo iskugu jiro axmaarada iyo weliba Soomaalida. taasi waxa ay keentay in ciidamada federaalka Itoobiya ay rasaas kor u ridaan iyo kuwa New Police-ka ay ku kala ceyriyaan dadka shacabka ee iska horimaadka halkaasi ku dhaxmaray. ilaa iyo hadda kama aysan hadlin xukuumadda halkaasi ka jirto iyadoo dhacdani waxa imaanaysaa horay loogu dilay garoonka weyn ee Gradwell Wall gabar la yiraahdo ayaan Sumcis taasi oo ah xildhibaanad isla markaana ka soo jeeday dowladda deegaanka. gabadhaasi ayaa waxaa dilay nin axmaar ah isla markaana toogasho bareer ah kula kacay gudaha garoonka Gradwell Wall. muuqaalka shargareeya asxaabtiina la wadaaga mahadsantihiin wanaagsan markastana aad halkan nooga jaan qaadisaan.